maxkamadda racfaanka gobolka Sanaag ayaa kiis ku dhawaad 9 sano soo jiitamay isla markaasina soo maray badiba maxkamadaha Soomaaliland ayay maanta xal ka gaadhay kiiskaasi kiiskani oo ahaa mid la isku haysto hantida maguurtada oo isugu jirta guriyo dhameystiran iyo sidoo kale beero waxaana kiiskani u dhaxeeyay labada daraf ee kala ah Maxamed Cali Ciga Cadde iyo eheladiisa iyo sidoo kale Saara Axmed Siciid iyo eheladooda waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay xaakimka maxkamadda racfaanka ee gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cabdalle oo faahfaahin ka bixiyay sida ay kiiskaasi ku dhameeyeen waxaanu halkan ku soo gabagabaynaynaa dacwad soo socotay muddo 8 sanadooda oo bilaabatay 2009 dacwadaas oo ka dhaxaysay Maxamed Cige Cali iyo Saara Axmed Siciid dacwadaas oo ku saabsanayd guriyo beero jagooyin dabeetana maxkamadaha darajooyinkooda dacwadaas way dhameysatay hase ahaatee annaga maxkamad ahaan waxaanu garanay inaanu dadkaas sulux arintooda ku dhamayno Saara Axmed Siciid waxay ka tanaasushay lahaanshaha guriga maxkamaddu xukuntay gurigaanu iminka taaganahay weeyaan gurigaas oo lagu wareejinayo Maxamed Cige Cali oo soo wakiishay Chief Caaqil Jaamac Ismaaciil Muuse dhinaciga taagan Saara aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa maxkamadduna saas ayay ugu wareejinaysaa Chief Caaqilka furaha guriga waxa kaloo jira guri kale oo labadooda loo wada xukumay gurigaas oo u qaybsanaa labadooda oo baloodaha gurigaana waxaanu ku wareejinaynaa Saara Axmed Siciid oo la wareegaysa guriga guud ahaantiisa gudoomiyaha uu soo sheegay dacwadani waxay ahayd dacwad muddo dheer oo ilaa 8 sanadood iyo in ka badan maxkamadaha dalka soo wada martay oo ku jirtay ayuu ahayd hadeerna ugu dambeyn fulil u taalay maxkamadda racfaanka gobolka Sanaag maxkamaddii racfaanka gobolka Sanaag gudoomiyaheeda Maxamed Axmed Cabdalle runtii wuxuu soo jeediyay oo in badan ku ijtihaaday in si sulux ah lagu kala baxo oo aan si xoog ah oo hadda badkariyan la fuliyo booliis fuliyo ciidan fuliyo inaan lagu kala bixin sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay labadii dhinac ee kiiskaasi u dhaxeeyay muddada 9 sano ah oo sheegay inay sidaasi ku heshiiyeen isla markaasina ay ku qanacsan yihiin sida ay heshiiskan u gaadheen afurihii ii soo wakiishay ninka la yiraahdo Maxamed Cige Cali Cadde aqalkaas oo markii hore dacwadii 8 sanadood soconaysay maanta ay soo gabagabowday oo uu soo dhameeyay xaakimka racfaanka ee gobolka markaas حاكم سلو حاس يعني مرتاح كل ما يسين هداتين قلدين شرعية وانو يدينكم هاد نقينا كنت فاهمين تبحيي سيد وحود يعني سيد وحود مادين سيد حاكم شيء يعني كل انتهاي أنا أقول حنون ما هاد علينا يا حاكم كأو يسبب لفت جيسو ما حي هاي كان وحلي جنده وحق لي يا حاكم عدالة أنا وكو أدب هاي ولا غما فرفرو سلو حنا وكو أدب هاي ما شاء الله مركان أنا وحاكم كاسي أنا ما هاد علينا وإنه أدنى وجود دالي أنا كلا بحنا أنا أقول سيدا وشيء أيام سلو حكوا وقرادي كنا دمية برخت محمود جدي بولشة تيفي مقالة عرقابو